عني دمعتي والشرخاتي. runtii waxay ahayd taariikhda ama Soomaalida dhaqankeeda ku cusub in gabar kula dhalatay guurkeeda inaad ka haysto. marka hore waxay ku xiran tahay horta qiimaha qofka agtaada uu ku leeyahay. gabadha guursanaysa waa gabar ila dhalatay oo qof aad qaali igu ah ayay ahayd. marka runtii maalinta farxadeeda ah waxaan go'aansaday bal inaan surprise u sameeyo. surprise-ku waxyaalo badan noqon karaa inaad hadiyad siiso qofka, inaad wax u samayso. marka aniga waxaan isku dayay, waxaan raadiyey YouTube-kii in ka raadiyey qof walaasha si surprise ah ugu samayso arooskeeda. runtii marka waxaan helay marka video qof wiil dhalinyaro ah oo u heesaayo walaashiis. marka heestii aan raadiyey carabigana aad u fahansanaa 7 sano ka badan ayaan soo joogay, wax ku soo bartay. video soo dejiyey runtii sidoo kale waxaa iga caawisay xaaskayga oo ay u dhiirigelisay inaan xifdiyo. marka heestii saasaan ku xifdiyey. maalintiina runtii saasaan ku qaaday heesta. sumcad fiican iyo positive feedbackna way ka bixisay oo dadkii fariimo badan ilaa hadda maalin walba intaasoo fariimo ayaa iga soo gaaro oo mahad celin iyo dhiirigelin gaar ahaan dumarka. miraha wuxuu ku saabsan yahay waa very simple, wax aad u fudud waaye. wuxuu ka hadlayaa xiriirka ka dhaxeeya adiga iyo walaasha. wuxuu leeyahay ukhti xabiibti indhahayga daya cuyuuni meel weyn iga taala gacmahayga ayaan kugu guurinayaa. yani waa sharaf weeye walaalka in gabadha kula dhalatay inaad si hadiyad ahaan aad u guddoonsiisay ninka ay calmatay ilaahay u caafiyo. marka wuxuu leeyahay sidoo kale wuxuu leeyahay intaan dunida wada joognay hal maalin maana kala tegin, mar walba isla joognay. marka waxbaan dareemayaa hadda inaad iga dhaqaaqdo iga yar fogaanayso, laakiin mar walba ogow waxaan ku ahay garabaan ku ahay, sanadaan ku ahay. wax walba meel walba qof walba ku dulmiya xaqaaga waa kaga soo qaada. يعني wuxuu u door xulayaa ninkan guursanaya xataa hadduu ku dulmiyo xataa anaa kuu joogo oo garab kuu ah oo sanad kuu ah. marka hawlwelin uu leeyahay waa hore u soco. runtii aniga dhaqankeena ani ahaanteyda dhaqanka carabta aad aan u jeclaa. hore aan u soo sheegay Yemen 7 sano soo joogay. sidoo kale gabadha ila dhalatay jaamacadaha dalka oo luqadda carabiga ku baxa ay ka baxday. bulshada family ayadaa fahmi karta dareenkeedan aan muujinay. xataa ninka guursaday xataa nin waddanka Suudaan ku soo bartay oo fahmay dhaqanka carabta. والله dareen gooni ah meelan jiro iyo maba kala dareemin. dadkii dhan dad badan ilmeeyay, dad hoolka jooga emotional ay ahaayeen. qaar dumar ay u soo orday xataa oo madaxa iga shuliyay oo oonan ogeyn xataa. marka runtii dareen gooni ahaa.
ilaa haddana waa jira video qaar la soo dhigay Facebook oo heestaas ku saabsan ilaa hadda dadka inuu ku cusub yahay moodo